Waayahay salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baa idin salaamaya dhammaan inta videogan uu soo gaarayo waxa weeyaan waa anigoo Cabdalla ah waxaan doonayaa maanta inaan hagitaan u sameeyo ama aan tuso qaabkii enrollment-iga u codsan lahaayeen ardaydii ku guuleysatay admissionska Talyaaniga iyadoo loo sameynayay hagitaan buuxa oo custom mentoring tiimkaas uu sameynayay marka koowaad waxaad imanaysaa waxa loo yaqaano universitaly.it oo website-ka dowladda Talyaanigu leedahay markaad timaado halkan course-kaaga ka raadin karaysaa halkan markaad timaado waxaad sameynaysaa waxaad dhahaysaa registration oo international students-ka loogu talagalay mar walba hubi halkaas inay luqadda English ku tahay English ka dhigo waayahay halkaasaad tegi doontaa inagu maadaama aynan lahayn wax ma garanaysaa email haddii aadan lahayn baan leeyahay waxaad sameynaysaa register baa dhahaysaa register markaad tiraahdo waxaad qoraysaa magacaaga kala gelinaysaa halkan oo kale waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano magaca last name-kaaga waxaad gelinaysaa email-kaaga waayahay halkan waxaad gelinaysaa numberkaaga bla 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 +252 hadda ka horreysay hadda Soomaaliya joogto country of birth halkaa u dhalatay Soomaaliya gelinaysaa magaalada ama degmada aad joogto Muqdisho aad gelinaysaa date of birth xilli ka dhalatay bishii koowaad 20-keedii tusaale ahaan 1999 waayahay genderka waxaad dooranaysaa lab iyo dhadig kaa tahay kadib citizenshipka Soomaaliya halkan koodhkan waxaa automatic u generate garaynaya website-kooda markaas ka dhaafaysaa document type-ka waxaad kusoo upload garaynaysaa documentiga aad doonayso inaad ku apply garayso enrollment-iga hadduu ID card yahay hadduu license yahay hadduu passport yahay anu maanta waxaan isticmaali doonaa passport waayahay passportka waa qoraysaa bla 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 should waxaa cidda bixisay baad ku qoraysaa filed ilaa xilligii lagu siiyey baad halkaa garanaysaa gelinaysaa tusaale ahaan bishii koowaad 25-keedii 2020 waayahay ilaa xilliga uu dhacayo then waxaad dhahaysaa bishii koowaad 24-keeda tusaale ahaan 2025 5 sano weeye marmare halkan meesha degantahay baad ku qoraysaa tusaale ahaan Soomaaliya Muqdisho waayahay halkan postal code baad soo gelinaysaa 252 oo kale address of residency ayaad halkan gelinaysaa addresskaaga tusaale ahaan district ama adana kaliya ku dayn kartaa password baad halkan samaysanaysaa password adag oo ma garanaysaa hadhow kusoo gasho oo xasuusnaanayso waa inuu noqdaa waayahay waxaad dhahaysaa register markaad tiraahdo waxay kusoo diri doonaan email bay kusoo diri doonaan instructions wata waxaad tegaysaa markaa email-kaaga waxay kusoo dirayaan email-kii waxaad ku dhufanaysaa email-ka markaad kusoo dhufato wuxuu keeni doonaa automatic wuxuu kuu keeni doonaa page-ka dashboard-ka ee aad enrollment-iga ka codsanayso haddii aanu page-kan ku keeninna toos halkaa waxaad ku dhufanaysaa halkaasaad universitaly ka tegaysaa qaybtan markaad timaado personal data already wuu kuu buuxinayaa marka halkan aad imanaysaa ay ku qoran tahay pre-enrollment application aad on click ayaad halkan ku dhufanaysaa waxaad dhahaysaa new pre-registration application halkan ma ku dhufato step koowaad baa kusoo baxaya already xogtaada way buuxdaa academic yearkaad dooranaysaa xogtaada way buuxdaa house numberka oo kale waxaad dooranaysaa 1 waxaad dhahaysaa go to state D inta kale way ku dhan tahay qaybta passportka baad timaaday passportkaaga xogtiisii aad horey usoo gelisay halkaa kasoo muuqanaysaa halkan waxaad soo gelinaysaa sawir kur ah oo passport size ah ama testro soo gelinaysaa waayahay maanta anu kaa isticmaalayaa laakiin sawirku waa inaad sawira soo hubisay uu yahay oo
sawir passport size oo kur ah loogu talagalay waa inuu noqdaa. Waayo halkan waxaad soo gelinaysaa passport-kaagii. Passport-kayga waa kan. Passport-kaaga waa soo gelinaysaa. Halkan waxaad dhahaysaa safaaradda aad doonayso inaad ka codsato waa safaaradee. Waa safaaradda Muqdisho. Sababta aad u codsanayso fiisaha waa purpose of study ama waxbarasho. Institution-ka aad codsanaysaa ama waa jaamacad. Magaca institution-kaaga aad ka heshay admission-ka ayaad halkaa ku qoraysaa. Tusaale ahaan Palermo haddaad mid kale ka heshay Tuskegee haddaad ka heshay oo kale halkaasaad ku qoraysaa. Marka mid allaalihi midkaad ka heshay baad halkaa ku qoraysaa. Waad fahantay. Course-kaaga type-kiisa waa master degree baan dooranayaa. Course name-kaaga ayaad halkaa ka baaraysaa. Tusaale ahaan computer. Okay. Computer engineering-kaas oo kale. Waaye intan waad iskaga tegaysaa. Halkan waxaad gelinaysaa koodhkii ama account-kii ID-gii ee lagu siiyey baad halka soo gelinaysaa. Kadibna waxaad dhahaysaa step C ii wad. Waaye halkan markaa step C timaado waxaad samaynaysaa qaybtan educational qualifications-ka weeyaan. So please upload the qualifications that allow access to choosing course according to the information provided by the higher education institution with any translations. So ilaa kuwii aad translate kusoo samaysay ee soo marisay ma garanaysaa nootayooyinka waad soo gelinaysaa. Tusaale ahaan marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa shahaadada secondary-ga ka bilow. Shahaadada maxay tahay? Leeyahay sanad diblomas waxaad dhahaysaa secondary diploma. Leeyahay upload baad dhahaysaa. Markaad soo upload garayso halkaas kasoo muuqanaysaa. Faylka kale aan gudbaynaa. Faylasha aad haysato oo dhan halkaas aad kusoo upload garanaysaa. Shahaadada bachelor-ka oo kale aad haysataa. Iyadana halkan aad kusoo upload garanaysaa. Iyaduna waxa weeyaan secondary diploma. Dhahaysaa waa bachelor of tusaale ahaan computer science. Bachelor of computer science waxaad dhahaysaa upload. Waayo markaad soo upload garayso tusaale ahaan warqadda admission-ka ayaad iyadana upload dhahaysaa. Warqadda admission-ka education provided Italian language translation leh. Sidoo kale others iska taaban kartaa. Dhahaysaa waxa weeyaan admission letter. Waxaad dhahaysaa upload. So dokumentiyada aad haysato dhammaan halkan aad kusoo wada upload garanaysaa. Tusaale ahaan CV-gaagii oo kale. Halkan aad upload dhahaysaa. Waxaad kusoo upload garanaysaa CV. Dhahaysaa CV. Waaye waxaad upload tiraahdaa isagana. Waxaa haray transcript oo kale. Transcript-ga soo upload kare. Waxaad dooranaysaa waa kan exam certificate transcript. Halkan waxaad ku qoraysaa transcript. Waayahay upload baad dhahaysaa. Marka upload tiraahdo haray reference letter-kaas oo kale. Halkan waxaad samaynaysaa baaraysaa reference-ga ama referee-ga meesha loogu talagalay. Waatan cover letter ama recommendation. Recommendation iyo reference waa isku mid. Dhahaysaa recommendation letter. So upload baad dhahaysaa.
markaad dhammaan dokumentiyada soo wada upload garayso waxaad dhahaysaa summary. So halkan waxaa lagu tusayaa dhammaan xogtii aad buuxisay dhammaystiran ilaa magaranaysaa waxyaabihii declarationka lagu tilmaamayay. Waxaad dhahaysaa I have read the database. Markaad tiraahdo waa datadan weeyaan waa kasoo noqonaysaa waxaad taabanaysaa submit the registration application. So markaad submit tiraahdo wuxuu samayn doonaa markaad kili garayso buttonkan pre-enrollment-gii aad samaysay waxay u dhici doontaa institutionkii aad tiraahday admission baa ka wataa ee dooratay. Marka ay u dhacdo institutionka wuxuu eegi doonaa applicationkaagii kadib dib uu usoo forward garayn doonaa wuxuu soo diri doonaa waxa loo yaqaano warqadaadii magaranaysaa pre-enrollment-ga iyo admissionkaagii oo isla socda. Wuxuu u diri doonaa qonsuliyadii ama embassy-gii ama waxa loo yaqaan safaaraddii aad dooratay. Kadib safaaradda kusoo ogeysiin doontaa wixii xoga. Marka si aad xogta ula socoto mar walba waa inaad indhaha ku hayso waxa loo yaqaano emailkaaga. Gare oo indhaha ku hay insha Allah. Aad baan idin salaamayaa. Waxaan filayaa inaad aad u fahanteen magaranaysaa waxa loo yaqaano pre-enrollment-ga soo la codsado. Guuleysta.